فلأنصرن الحق حتى أنني أسطو على ساداتكم بطعاني. الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إفككم ثعباني. بأدلة القرآن أبطل سحركم وبه أزلزل كل من لاقاني. هو ملجئي هو مدرئي هو منجني من كيد كل منافق خواني. إن حل مذهبكم بأرض أجدبت أو أصبحت قفرا بلا عمران. والله صيرني عليكم نقمة ولهتك ستر جميعكم أبقاني. أنا في حلوق جميعهم عود الحشا أعياء طبتكم غموض مكان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وحلقتي أما كلنكي صدحات كلمدي أنا ugu magac daray maandoon maxaa ka maqan. fadhiga hore waxaan soo ogaanay qeexida waxa weeyaan lagu qeexayo saxaabigu wuxuu yahay ama qofka saxaabi noqonaya qeexidiisa. waxaynu kaloo yana soo tilmaamnay ujeedooyinka qarsoon ee kulamaan aflagaadeynta asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaynu tilmaami doonaa xalqadan saxaabiga aynu soo qeexnay fadliga iyo makaanada iyo maamuuska uu ku leeyahay sharciga alleh iyo mu'miniinta agtooda. aayado fara badan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay asxaabta nebi moxamed sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam iyo fadligooda. aayadaha waxaa ka mid ah qowlullaahi jala wacalaa, hadalkii alle fii suurati tawba, suuradda la yidhaahdo suuratu tawba, aayadda 100 alle uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala uu yidhi waasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar waaladiina itabacuuhum biixsaanin radia allaahu canhum waraduu canh وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هلا وحي كوي هرمري إسلام كأوهرية ودقدقي مهاجرين إيا أنصار إيا كوي إيا راعي دبقل طريقو دي راعي هبكا هريان لكن وددو دي راعي وناقنا كل راعي. alle waa ka raali noqday, iyaguna alle way ka raali noqdeen. allana wuxuu u diyaariyey jannooyinkaasoo hoosteeda ay dareerayaan webiyaal kala duwan, waanay ku waarayaan naciimka iyo jannooyinka weligood. arrinkaasina waa liibaan weyn baa layidhi. kuwaa la sheegayana asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam lamana kala soocin, oo qof kasta rag iyo dumar, mid weyn iyo mid yar, qeexidda aynu soo sheegnay ee laga helaa fadligan wuu yeelanayaa iyo abaalkan weyn. abaalkanina waa khabar oo alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay kuwa sidaasa ilaahay wuxuu u yaboohay oo uu inoo sheegayaa inay jannooyin galayaan sifooyinkaa leh. khabarkana ama warkana lama nasakho, lagama daba tago. warka qofku uu sheego ama cidi sheegto, qofka ka daba taga ama kii yidhi ha noqdo, kii yidhi haddii uu ka daba tago waxay noqonaysaa ama jahli ama been. labadabana ilaahay subxaana wa tacaala uu ka nasahan yahay, uu ka hufan yahay. alle subxaana wa tacaala asxaabta waxa weeyaan alle haddaanu ogeyn wanaaggaas ay ku sugan yihiin iyo waxa weye inay khayr iyo wanaag ku dhimanayaan, alle subxaana wa tacaala abaalkaas uma sheegeen. waxaa kaloo ka mid ah aayadaha fadligooda ku soo arooray suuratu lfatxi, suuradda la yidhahdo suuratu lfatxi, aayadda 18 alle wuxuu yidhi laqad radiya allaahu cani ilmu'miniin id yubaayicuunaka taxta ashajara facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayhim وأثابهم فتحا قريبا. wuxuu yidhi alle subxaana wa tacaala dhab ahaani alle waa ka raali noqday mu'miniintii waqti ay kula baayactamayeen, geedka hoostiisana ay kugula baayactamayeen. allena waa ogaaday quluubtooda waxa ku sugan,
wanaag iyo khayr iyo diin jacayl ah, allana wuxuu soo rogay xasilooni ayuu korkooda ku soo rogay, waana alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku abaaliyey fatxi dhow. arrinkaasi ama aayaddaasi waxay tilmaamaysaa ilaahay inuu ka raali noqday mu'miniinta la baayactamayay nebiga calayhi salaatu wasalaam, waana sulxulxudaybiya. ilaa 1500 ayay ku dhowaayeen cadadkoodu. 1500 ee saxaabi alle subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay in alle uu ka raali noqday. allena wuxuu ka raali noqdaa qof alle subxaanahu wa tacaala uu og yahay inuu khayr iyo wanaag cirib dambeedkiisu uu noqonayo. aayadaha waxaa ka mid a aayadda alle subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay isla suuratu alfatx aayadda 29aad. alle wuxuu yidhi muxammadun rasuulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آيادا runtii waxay ka mid tahay aayadaha ugu cadcad ee ku soo arooray fadliga asxaabta nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. alle aayadan wuxuu ku sifeeyey nebi moxamed kuwii la jiray inay yihiin qaar gaalada ku adadag, dhexdoodana isu naxariista, cibaado badan, ilaahay dartii cibaadooyinka u samaynaya, raalli ahaansho ilaahay ka doonayaan iyo fadli alle ka doonayaan daraaddii. calaamadahooduna waxa weeyaan wejiyaashooda ayay ku sugan tahay, taasoo ah waxa weeye sujuudda calaamadaheeda. tusaalahaasi waa kii ay ku lahaayeen towraat, injiil oo nebi ciise lagu soo dejiyey. tusaalahooduna wuxuu ahaa oo alle uu ku tilmaamay inay yihiin beer ama waxa weye dalag soo baxay oo waxa weeyaan uu soo muuqday, waxa weeyaan dalagaasoo soo muuqday isla markaana adkaaday, kaasoo waxa weeyaan yaabgeliyey kuwa beeroolayaasha ah. waxaana alle masalka uu u yeelay si uu gaalada uga cadhaysiiyo ama ay uga cadhoodaan. waxaa kaloo alle tilmaamay inuu u yabo ahay mu'miniinta kuwii iimaanka la yimid, camalka saalixahana shaqaystay ee saxaabada ahaa, dembi dhaaf iyo ajar weyn. kulla arrimaha aynu sheegnay ee aayaddan ay tilmaamaysaa iyaduna waa khabar laynooga warramaya asxaabtu siday ahaayeen iyo wanaagay ku sugnaayeen. waxaa ka mid ahaa aayadaha ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ammaanay asxaabta nebi moxamed, suuratu xadiid aayadda 10aad. alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakullan wacada allaahu alxusna wallaahu bimaa tacmaluuna khabiir. alle wuxuu yidhi ma sinna xaggiinna kii wax bixiyey fatxigii ka hor ama fatxu maka ka hor, kii wax bixiyey ee jihaadka galay lama sinna oo kuwaasaa ajar weyn kuwii iyaga ka dambeeyey ee fatxu maka kadib islaamay ee dagaalka iyo jihaadka galay. markii alle intaa uu sheegay inaanay labadaasi sinnayn oo kuwii islaamku markuu cusbaa ee lala wada dagaalamayey ee dhibka iyo culaysku uu badnaa, kuwii jihaadka galayay xoolahooda bixinayay, iyo kuwii markii islaamku quwaystay kabacdi islaamay ee xoolahooda bixiye jihaadka waday, labadaasi ma sinna. waana tii aynu sheegaynay ee aynu nidhi asxaabta nebigu calayhi salaatu wasalaam way kala fadli badan yihiin, laakiin dhammaantood marka laysku daro fadligoodu aad iyo aad buu u wen yahay. ciddii iyaga ka dambaysana way ka fadli badan yihiin. taa isagoo alla caddaynaya alle wuxuu yidhi wakullan wacada allaahu alxusnaa. kuwaa hore ee islaamka u degdegay iyo kuwii dib ka islaamay ee waxa weeyaan wanaagga sameeyey, dhammaantood ilaahay wuxuu u ballan qaaday
oo u yaboohay alxusna xusnaduna waxa weeye waa janno. waxaa ka mid ah aayadaha fii suurati alxashri aayadda 10aad alla uu leeyahay subxaanahu wa tacaala lilfuqaraa'i almuhaajiriin aladiina ukhrijuu min diyaarihim waamwaalihim yabtaguuna fadlan min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulah ulaa'ika hum alsaadiquun والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. saddexda aayadood ee aayadda 8aad ilaa aayadda 10aad ee suurat alxashri alle wuxuu leeyahay lilfuqaraa'i almuhaajiriin kuwii muhaajiriinta ahaa aayaddu tacalluq horay leedahay ama aayadihii ka horreeyay ku xidhantay oo markii muhaajiriintii waxa weye wixii laga qaaday ama faygii laga qaaday reer banu nadiir muhaajiriintii la siiyey ayaa waxa weye munaafiqiintii ka hadleen deedna waxaa alla leeyahay ma waxay la yaabayaan in la siiyey sahmigaas ama xoolaha laga qaaday reer banu nadiir inay u sugnaadeen fuqaradii muhaajiriinta ahaa kuwaasoo laga soo saaray guryahoodii iyo xoolahoodii iyagoo dalbaya alle subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo raallihaanshihiisa ilaah iyo rasuulkiisana u gargaarayay. kuwaasi waxay yihiin dhab ahaane waa kuwii runta sheegayay iimaankooda ka run sheegayay. markaasa alle wuxuu yidhi kuwii iyagu madiine degay ee waxa weeyaan iimaankuna degay qulubtooda muhaajiriinta ka hor waxay jecel yihiin cidda u soo haajirtay ee muhaajiriin ah heli maayaanna laabahooda wax cidhiidhiya wixii ay bixinayeen bale waxay hormarinayaan oo nafahooda ka hormarinayaan walaalahood waxay siinayaan ayay ka horraysiinayaan waxay nafahooda siinayaan. baahi iyo gaajo daran iyo baahi daranibaha ku sugnaatee qofkii laga ilaaliyey naftiisa bakhaylnimadeeda laga ilaaliyeyna dhab ahaanee waa kuwii liibaani. markii labada alle uu sheegay muhaajiriin iyo ansaar alle sheegay subxaana wa tacaala ayaa alle wuxuu tilmaamay kuwii iyaga haddaba ka dambeeyey iyaga dabadood yimidna ee wanaagsanaana waxay odhanayaan ilaahu noo dembi dhaaf annaga iyo walaalaha naga horreeyey ee iimaanka nooga horreeyey qulubtayadana ha yeelin cadho iyo nacayb aan u qabno kuwii iimaanka laga helay. ilaahayow waxaa tahay ra'uufuraxiim dhibriye naxariis badan. saddexda aayadood aayada waxay tilmaamtay fadliga ay leeyihiin muhaajiriin, aayadana waxay tilmaamtay fadliga ay leeyihiin ansaar, aayadana waxay tilmaamtay kuwii ka dambeeyey sifada ay leeyihiin. marka kuwii ka dambeeyey waxaa soo gudagelaya ilaa dadka xilliga nool oo waxa weeye asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxayna saaran inaynu nidhaahno rabbana اغfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal fii quluubina ghilan liladiina aamanuu. inaynu sidaa nidhaahno ayayna saaran oo ah ilaahayow noo dembi dhaaf annaga iyo walaalihii naga horreeyey ee iimaanka nooga horreeyey qulubtayadana cadho iyo xiqdi iyo waxawey nacayb iyo uurxumo aanu u hayno kuwii iimaanka nooga horreeyey ilaahu qulubtayada ha yeeli. idan aayaadkaasi waxay tilmaameen fadliga ay leeyihiin asxaabta nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. aayadaha waxaa ka mid a aayadda 110aad ee suurata ali cimraan ilaahay wuxuu leeyahy kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkari watu'minuuna billaah. waxaad tihiin ummad la soo saaro, ummad waxaad tihiin kuwii ugu khayrka badnaa, ummaddii ugu khayrka badnayd ee dadka loo soo saaro. wanaagaad isfaraysaan, xumaantana way isu diidaysaan, ilaahayna waad rumaynaysaan. culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen kuntum ay bimacnaa antum, oo aayadda macnaheedu waxay noqonaysaa antum idinku waxaad tihiin khayru ummatin, ummad kuwii ugu khayrka badnaa ayaa tihiin. marka aayaddana waxay tilmaamtay in asxaabta nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam maadaama xilligii aayaddan ay soo degayeen mu'miniinta nool ee iyaga ahaayeen waxay tilmaamaysaa
in ay ahaayeen ummadihii la soo saaray kuwii u khayrka badnaa inay ahaayeen. aayadaha waxaa ka mida suuratu axzaab, ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda 23 waxa uu yidhi min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah waminhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala mu'miniinta waxaa ka mida rag ilaahay waxa weeye run u sheegay oo ka dhabeeyey wixii ay sheegayeen ee iimaanka iyo khayrka ahaa iyo inay khayrka samaynayaan. sidaa ilaahay ballankula galay waxaa ka mida qaar ka dhabeeyey, waxaa ka mida markaa qaar waxaweye alla oobsaday oo waxaweye jihaadkii ku dhintay, waxaa ka mida mid sugaya ballantii inuu oofiyo, manay bedelin oo wax doorina kumay samaynin ballantii alla in la galeen. aayadaha waxaa ka mida aayadda 59 ee suurat an-naml, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy qul ilxamdu lilaah wasalaamun calaa cibaadihi aladiina istafaa. waxaa tidhaha nebi maxamedow mahadi allay u sugnaatay, nabadgelyana ha ahaato addoomihii alla doortay. ibnu cabaas radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay kuwa alla doortay hum asxaabu muxamedin sala allahu caleyh wasalam, sida imaam atabaraani walbazaar ay soo saarayaan. ibnu kathiirna uu ku sheegaya tafsiirkiisa, ibnu cabdilbar fi listiicaab, alqurطubi fii tafsiirihi. sidaas la mida ayaa alimaam thawri abu sufyaan athawri isna uu ku fasiray. marka culimo badan oo ibnu cabaas ugu horeeyo oo turjumaankii qur-aanka iyo mufasirkii weynaa ee ducadii nebigu calayhi salaatu wasalaam ay ku dhacday ee nebigu ugu duceeyey in ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabka alle fahansiiyo ayaa ku fasiray addoomaha alle doortay inay yihiin asxaabta nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam. aayadaha waxaa ka mid ah aayadda 28 ee suuratu aracd, alle uu leeyahay subxaanahu wa tacaala aladiina aamanuu watطma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi taطma'inu lquluub. kuwii iimaanka la yimid ee alla rumeeyey quluubtooda waxay ku xasilaysaa dikriga alleh. kuwa alla rumeeyey ee aayaddu sheegtay, sufyaan athawri raximahullah wuxuu leeyay hum asxaabu muxamed, sida saciid ibnu mansuur sunankiisa uu ku warinayo, sidaas ayuu ku fasiray. aayadaha waxaa ka mida alle subxaanahu wa tacala uu ku tilmaamay fii suurati albaqara aayadda 121 aladiina aataynaahum alkitaab yatluunahu xaqa tilaawatih ulaa'ika yuuminuuna bih waman yakfur bihi fa ulaa'ika hum alkhaasiruun. kuwii aanu kitaabka siinay way akhriyayaan kitaabka akhrin dhab ah oo tii u mutaystay ah ayay akhriyayaan. kuwaasina waa kuwii rumaynayey kitaabka iyo ilaahay rumaynayey subxaanahu wa tacaala. sheikha la yidhaahdo taabiciintii ka mid ah qataada ibnu dacaamata saduusi raximahullah wuxuu ku fasiray hum asxaabu muxamed sala allahu caleyh wasalam aamanuu bikitaabi illaah wacamiluu bima fiih. waxa weeye waa asxaabta nebi maxamed, kitaabka allena way rumeeyeen, wixii uu sheegayeyna way ku camal faleen. aayadka aynu tilmaamnay walaalayaal iyo aayado kale waxay kulligood tilmaamayaan fadliga iyo maqaamka iyo maamuuska asxaabta nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam ay ku leeyihiin cinda allaahi jala wacala, ilaahay agtii. oo kitaabka alle inoogu waramay, inoogu sheegay makaanada iyo fadliga ay leeyihiin. intaa waxaynu kusoo gabagabaynaynaa xalqadii saddexaad ama fadhigii saddexaad ee aynu ciwaanka uga dhignay maandoon maxaa ka maqan. wallahu tacaala aclam. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. فلا أنصرن الحق حتى أنني أسطو على ساداتكم بطعاني. الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إفككم ثعباني. بأدلة القرآن أبطل سحركم وبه أزلزل كل من لاقاني. هو ملجئي هو مدرئي هو منجني من كيد كل منافق خواني. إن حل مذهبكم بأرض أجدبت أو أصبحت قفرا بلا عمران. والله صيرني عليكم نقمة ولهتك ستر جميعكم أبقاني. أنا في حلوق جميعهم عود الحشا أعياء طبتكم غموض مكان.